واتعدى في البلايص بس واتعبتي وجهها في عبتي weli waxaa ka sii hor muuqata hooyadeed Qamar taas oo xalay sababsatay aabihii dhala gabadhan waa murugo iyo uur ku taala qalbiga ku xanuujinaysa marka loo eego dhacdadan oo ka dhacday degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kadib markii Maxamed Shamis Sheekh Muumin oo ahaa ninka dilay gabadha uu qabay qoyskan oo aan booqanay ayaa inoo sheegay in dilka uu yimid kadib markii Qamar oo ah marxuumadda ay ninkeeda uu soo kala dhaxgalay muran la xiriira lacag ay haysay 12 caruur ah ayay Qamar uga tagtay ninka dilay oo ahaa ninkeeda waxaana mar gurigooda aan ku booqanay xaaladdu ay ahayd sidan أشكر عسيسنا هاي هربتين وواحد إذا موعش هايدين آخر هاي آدي هاي معنا بنانك يتاجن توس بنانك واحد جوز مالله مستي يبعوسو والله يبعوسو عبتي ما يا أعوذ بالله من أعوذ بالله واتعدى في الدوات واتعدى في البلايص بس واتعبتي وجهها في عبتي يبعوسو عبرتي أقدر أقدر لا عبرتي والله وأنا جد أنا إلهي حقاري لا كصوبحيو الحمد لله إلهي حقاري لا كصوبحيو إلهي حقاري لا كصوبحيو كالو حقي kadib geerideeda ayaa waxaa loo soo qaaday Qamar guriga hooyadeed oo ku yaala degmada Boondheer ee gobolka Banaadir halkaas oo maanta laga qaaday midkeeda sababta keentay dilka gabadhaas ayaa la sheegay in ay ahayd kadib markii uu weydiistay lacag $25 ah oo ay u sheegtay inuusan awoodin intaasi kadibna uu imaaday dilka uu u geystay gabadha uu qabay Allah u naxariistay qaar kamid ah eheladii ay ka dhalatay gabadha ayaan la hadalnay waxayna inoo sheegeen 7 mindiya ku taalay xaaskiisa ahayd 12 cunug ay u dhashay intaano san 4 yar ah inta kale waa weyn waa 3na aakhir ay jirtaa sagaal joogtay ifka hadda sagaalkii joogtay hala hadda laba noogu daran gabdhiya hadda naga shoognaaga furna anaga yarna isku shoogaysan marka ilaahay cadaaladda markay waxaan ka bari lahayn lacag $25 lacag oo weydiistay mise lacagtaas isiyo yiri mise adaa u maqan lacagtii u dan sheegatay waxay tir waxna ilmahan dugsi aaga baxsaday waxna ilmaha wax barasho aaga baxno raashin oo soo dhigtay lacag kale ma awoodi mana haayo Xamar Jajab hayda shaqadeysay Banaadir ka shaqeynaysa umulse ahayd lacagteeda la ajigeedu ku dilay waa fagtay asiga ilaa hadda meel ku hayna ma lahan waana intaas oo san guriga u joogto intaas oo daa u dhashay waa hadal dagaal shaanshiyeedkaas inuu dhaxdooda ka jiri maahane ninkaaneta wuxuu ku dilay waxay taa mooto bajaada iga halaysan $25 lacag isii mootada ku sameystay ima awoodo sababay ku noqonay waa marka 25 taas intaas bisoo ku dilay lama amaanka waxaan ka codsanaynaa ninkaas meel kasta meeshii lagu arko in noola soo qabto oo sida sharciga cadaaladda ay jirto in waajibkiisa nagu la marsiyo Maxamed Shamis Sheekh Muumin Allah walaashay waaye daadiga weyneed waaye الله يا رحمن الرحيم عدالة وحنك سجينا إني حقنا إنه دعيان كل رج يركيس أنا وحي كده حين أو صاد أنا وحنك شيء كرنا ملا لكن هذا واحد لشيء من مركز عرورت شيء إنه جروج إنه كهستي عنق لحيته من جرا معناها ويل إنه كفجي أصله مرجنا كده بناك إنه أو صعرته أو لحته رجليه intaas sheeg karna gabar hadda 13 jir oo bartaan lagu xareynaa hooyaday halkaas taan hadirtaan lahayd inay indhaheedu ku arkayso markii habarta la dilay reerka wax dhaxmar ma la dad dhaqmaayo oo laba qof oo isqabto dhaqmaayana ahaay macna sax waa si ciyaalka macna guriga ciyaal jooga ciyaalka imaadeen si ciyaalka anigu noo sheegeen lacag uu weydiistay mootaa halaysan lacagtaas isii $25 mootada ku sameeysto iyo lacagtii macnaa ma hay anigu ma awoodo intaas isku dagaaleen soo ku fadhiyo ciijo ku hayo wiil yar oo 16 jir ah ka kiciyay cunugii wuxuu dhahay hooyo kaba soo gashana banaanka noo bixi habarta intii banaanka jirtay oo ninkan anu gadaal ugu imaado tuuray oo ku dhuftay wiilka uu soo hanjabay macnaha asna wadada habarta ee marta uu wiilkan uu marsiinay dhacdooyinka noocan oo ah kuwa argagax leh ayaa waayidii dambe ku soo badanayay magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka kuwaas oo aan la mahadin cali cilmi KNN
u doono Soomaali Suudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudanes waa badqabka bulshadeena.